سهالة سلاسي بالله يلحظة وأووي يحاج شرماركا صاحبة كل كا إمارتنا حاج شرماركا أضل سيدة iyo amiiradan fadhiya imaaradan la yiraahdo heerar waa col kolkaa ciisaha ayay soo diraano amiirkan uu ku soo diraa heerar intuu xaaji jarmaarko weerara buu yidhaahdaa kolkaa waxay dideen xaaji jarmaarka xaaskiisii iyo ciise ahayd waa bahda yaryar iyo caruurtii ganbay ka dhigeen buuggan akhriya first food steps in East Africa kolkaa xaaji jarmaarke waxay cod yihiin imaaradan ay isjaangareeyaan imaaradan say berberena waa col oo labadan imaaradood had iyo goor against xaaji jarmaarke waxay u arkaan inuu annexation ku samaynayo waxa weeyaan waa awood badan yahay oo waxa weeyaan dee influencekii adduunyadana wuxuu wataa xaggan kalena uu ka ilbaxsay oo quwadahan adduunyada iyo dee waa jaalanjiyadan maanta faransiiska iyo waktigaa aynu ka hadlano ingiriisku waa xilligan ay bawarka navyga haystaan quwadaha waaweyne dee hawada u boodaya maraykan iyo waktigani waa iska maraykan maba jiraba dee waa bisadoo dee waa xilligan aynu ka hadlano dee afgambiyadan waxaba soo bilaabmaya civil warking oo kuwii civil warkii maraykanka ka dagaalamayay confederate stateka saraakiisha ahaa ayaa kolkan dambe mahdiga intay masar yimaadaan ayaa waxa kiraysanaya khaliif ismaaciil oo mahdiga la dagaalamaya jaranaladii lagu soo jebiyey dagaalkii maraykanka kolkaa ingiriisku waa bawo kolkaa labadan imaaradood waa locol herar iyo berbera way isbahaystaan waa taariikh dheer kolkaa isaguna wuxuu bahaystaa shawac oo uu haysto kolkaasi mililk awowgii iyo awowgiisii labaad ee kan sii dhalay ayay saaxiibo oo kolkaa waxaa shariifkan haysta amiiradan herar ayaa weerarkaa ku soo qaadayoo dee waa ka qayladhaan u dirsanaya xaaji sharmaarkana xayla salaase mililka awowgii oo kolkaa haysta shawa wuxuu soo xidhxidhayaa 300 oo imaaradan herar amiirada baayimusharkii ugu waaweynaaye joogay waayo xaaji sharmaarke ayay ka xidhxidheen 200 oo tijaartii u fadhiday herar ah kolkaa exchange baa ahoo mililik malog baa dhalay malogna waxaa afgambiyi doonaa boqorkii la odhan jiray twadres ee ingiriiska kolkii ay la dagaalamayaan 1868 si saydka isku dilaya oo xitaa midiligan addoon ahaan buu qaatay beriga waabihii uu qabsaday shabwa taasi waa taariikha kale geli mayno kolkaa labadan imaaradood saddexdan imaaradood waxay ahaayeen dee halkay ku dhici doon kolkaa haddii ay imaaradda berbere iyo imaaradda adal ee kolkaa xaaji sharmaarka ay heshiin lahaayeen oo xilligaasi ay ku heshin lahaayeen empire maanta haysan lahaa dee adduunyadanoo dee xitaa taariikhda weyn aynu geli lahayn bay ahayd sababtan ay ku baaba'aso imaaraddii herar iyo imaaraddii saylac berberena kolka dambe loo dee qabsanaya masaariduba dee imanase dee heshiis hagaagsan iyo
de waxoogaa yaroo de aan caynka ahayna waa khasaarahan naga yimid khasaarahan aynu dhulka kolka dambe ku luminayno dhulkan hawd iyo reserve area iyo brit waayo ingiriis inagoo boqortooye ayuu inoo iman lahaa kolka waa sababtaan mary ann waan idin yar dhigay si aan waan ku socon doonaa xaaji sharmaarke nacam si aad bal sawir guud aad de uga fahantaan ayaan intaasoo dhan aan u socday mary ann baan kusoo noqonaya kolkaa kolkaa xaaji sharmaarke sidaasuu ku dhammaanayaa jabuuti iyo abubakar ibrahim sheebaan waxaa qabsanaya 5,000 oo kolkaa ra'uuf baasha uu wato ra'uuf baasha waa ka qabsanaya odagii xitaa wuxuu ku odhanayaa abubakar baasha ku-xigeenkayga noqo assistantkayga ilaa waa kuwa herar qabsanaya amiirkii herar nacam wuxuu dilay ra'uuf baasha nacam wuxuu herar ku dilay nacam waad yaabaysaa intan uu dilay dadkii indigenouska ahaayee dee herariyiinta ahaayee boqortooyada lahaa jeelkaa laga buuxiyey kolkaasaa biyo kulul baa lagu dul rushaynaya dad jeelka ku jiro biyo bayla lagu dul rushaynaya madarta oo qubka iyo ay kala tegayaan caynka amiirkoogiina bartanka ayuu ku deldelaya intuu qoorta ka jabiyo herar sidaasay egyptian kuna ku qabsanaya horta waa kuwan heshiiska kolka dambe la gelaya haddana ay berbera imanayaan wax yar dabadeed baa u dhexeeya waa kuwan bullaxaariya imanaya waa ninkan waa kan kolka ugu horeysa khaliil ismaaciil baasha wuxuu u soo dirayaa berbera imaaradda wafdi buu ka soo horeynaya wafdigaasi wuxuu doonayaa inuu incorporated kolkaa uu isku xidho imaaradda berbera oo la hoosgeeyo kolkaa alexandria toos lacag kolkaa badan baa la keenay in odayaasha lagu laaluusho kolkaa waa kan odayaasha waxaa ka mid ahaa nin la yidhaha ree axmed oo la odhan jiray cabdilaahi liibaan waa kan odhanaya berbera wax go' lagu qaado ka weyn wuu diidaya ganafka ku dhufanaya kolkaa waxaa la yidhaha heshiis ayay la gelayaan oo heshiiska masaaridu iyo imaaradda berbera dee wax badan bay ka qabteen wallahi berbera oo heshiis maamulka inaanay faragelin tacliintayna ka caawiyaan kolkaa heshiiskaasina de waa heshiis isaguna waa treaty yaalla oo u baahan in isagana lagu daro treatyada kolkaa de waatan shacabkan bay dhiseen xaafadan shacabka la yidhaa guryihii ugu badnaa masaajidadan qiblitaynka waa berbera xilligii ugu horreysay booming dhaqaalaheeguna samada u kacaya kolkaa bog waayo importka nacam waxyaalaha lasoo dejisanayaa xaasaskoogii bay la yimaadeen qolooyinka askartii maxaygii booming buu dhulku noqonayaa kolkaa waa another era iyo other civilization laakiin impact dambe ayay nagu yeelanayaanoo hoosaasin iyo wax kale oo iyadana de waktigeega in wax laga qoro iyo la doonayo kolkaa waxaynu soo gaarnay de 4,770 waa 1847 imaaraddii berbera ayaa kolkaa ka soo hadhay tii iyada waa la burburiyey imaaraddii halkane la odhan jiray herar toos baa kolkaa loo hoosgeeyey khaliif ismaaciil kolkaa amiiradiina waa la dilay waa sababtan uu milili ku qabsan doono 1887 kolkaynu tagno 13 sannadood kadib waxa dhacaya kolkaynu tagno kolkaynu halkaa joogno halkaasi ayaynu erey ahdigaasi ku dhaafanaa
si aan ugu gudbo kolkaa january 10keygii 1872